بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين داوديال كسر دوادا برامج وعيقلنا وسوق من قبسي وزارة هوين كارمها قويسكا يحقوق الإنسان كدولة جولات كشبلان أو قلبتها موضوع سوية هاي والله وعيقلنتا كهرتجا أما تشوتشنتا تعديدا أما قبض فلذا كدنك دمركا يتعديدا كسليسن جنسيا waxaa mar walba xusid mudan in ay mar walba mudan tahay in qaybaha nugul ee bulshada ay ka mid yihiin caruurta iyo sidoo kale haweenka iyo dadka naafada iyo dadka daada in xuquuqdooda mar walba ay bulshadu ku feejignaato isla markaana loo qareemo maadaama laga yaabo in badan aan laga qayb gelin madalaha laga go'aan qaadanayo arrimaha masiiriga ah laga yaabo in ay iyagu khusayaan waana barnaamijka doodan ay daaran tahay galabta barnaamijka galabta waxa dood igala qayb qaadan doona Sheikh Abdullah Mohamed Ibrahim oo isaga ka tirsan culimada diinka dawlad goboleedka Jubbaland isla markaana magaalada Kismaayo u fadhigiisu yahay Mawlid Sharif Abdullah oo isaguna odayaasha dhaqanka dawlad goboleedka Jubbaland ayaa gacantayda bidix iga fadhiya midigtayda waa Marwaluul Maxamed Guure oo ka mid ah ururada haweenka dawlad goboleedka Jubbaland iyo midigta fog oo iga fadhido Marwa Zahro Ibrahim Matan oo iyaduna ka mid ah ururada bulshada reedka isla markaana bahda caafimaadka ka tirsan barnaamijkeena ayaan si toos ah ugu gali doonaa waxaa mar walba sidoo kale aan dawlayaashan xusinayna in barnaamijka iyaguna ay qayb ka yihiin oo ra'yigooda iyo sidoo kale waxay isleeyihiin barnaamijka uu mudan yahay in laga hadlo ay nagu soo adin karaan booga aan ku leenahay baraha bulshada gaar ahaan baraha ay Facebook ku leedahay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka Jubbaland iyo sidoo kale ciwaanada shaashada idinka muuqda inta aad barnaamijka daawanaysaan سؤالنا أوريسا وحنسينا شيخ عبد الله وحارب نابل مركا أوريسا مركا لقى هذه تعدية كذا كدمركا أما تعدية جنسية قصة ليسن بل وحاربنا وحباها سوهس قلي كراسي بل أنت نندود وسيم جود قلين وحن كهد لنا نسلوه عنه سلوه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما صنتها يحيى iyo dhamaan guud ahaan teamka soo abaabulay oo ugu horeysay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Jubbaland sidoo kale waxaan mahad celinayaa al-Ustaad Mawlid oo hadee dhinacna dhaqankii matala dhinaca kalena waxa weeyaan nin culimo oo diinta yaqaan ah sidoo kale Maamuluul oo iyaduna kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka iyo guud ahaan arrimaha bulshada waxaa kaloo mahad celinayaa Zahra oo iyaduna sidoo kale activiste ama qof arrimaha dhalinyarada iyo guud ahaan arrimaha bulshada si fiican uga qayb qaata dhamaantii waa mahadsantihiin haddii aan ku soo dhawaado tacadiga loo geysto haweenka waa wax qadiim ah oo asal ahaan jiray waayo dumarku waa ogtihiin oo hadee bani aadamku wuxuu isugu tabar sheegtaa sida uu kala xoog badan yahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ليتخذ بعضهم بعضا سخريا marka in la isku xadgudbaayo wax dabiici ah laakiin xadgudubkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ogol yahay ma aha oo raali ka yahay sidoo kale midalan waa dhici jiray waxaan caad ahaan xataa uu dhici jiray oo carabtii hore dumarka way garaaci jireen way qaarkood xataa waxay gaartay inay aasaan markii dambe diinta islaamku aad bay ula dagaalantay arintaas iyada ah ilaa markii dambe la gaarsiiyay نبي يقول صلى الله عليه وسلم خياركم لأهله خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي نك يكون بسنة يكون وناسني وأنا كرر كيس أقوى وناسن أنا قلنا وحنا هاي نكرره هيس أم حاسس كيس أقوى وناسن مركز دقن كاسي ودقن شراء سيابا بنا أوضع مثلا وحكم ذا إن قفك أفلقاد لو جيستو وحكم ذا إن عنقاد لو جيستو وحكم ذا قفكو مثلا رجع يدمرك وحعادي إن رجوا مسؤولية قاضي إن مسؤولية دي نكو جبه أو هو يدي أما جبردي اللي ده المسؤولية دي دبر إستمر كان ما دام أي في سكني هنا السنة أبورنين إن المحن كل هاي أي شغال قبضة يكون رفاضه هات تصالحان مثلا هدي اللي ده جبرده ما أنت تركب بالكيس هصاد عيسو أو بالكي وكجل جيرش مثلا إن جيرش شغيسو أنت يسروا جينس حدته inay baabuurka hoostiisa gasho ay birta garaacdo ama birta laabtay ay ku adkaanaysaa marka waa xadgudub gabadha loo geystay bay noqonaysaa marka diinta islaamka iyo dhaqanka suubaniba waxay ina bareen in gabdhuhu ay yihiin al-jawhar al-maknuun yaani deeman la ilaashado oo maxaan ku dhahaayay laga ilaaliyo dacdarrada oo dhan
bal diintu waxay gaarsiinaysaa in la yiraahdo gabadhu guriga ha joogto ma aha macnaheedu in guriga lagu xabsinayo waxa weeye tacadiga suuqa ka soo gaari kara maadaama laga tabar badan yahay laga xoog badan yahay raggi hunguri weyn yahay marka tacadiye fara badan baa jiri karaya waxa kamid ah saan sheegnay aflagaadada waxa kamid ah gacan qaadka waxa kamid ah in morally qofkii aad u yasto ama la liido ayaa kamid ah Soomaalidii hore marka ay gabadhu soo doodo oo kale waxa la dhihi jiray gabadhu la weydiin jiray 3 su'aalood waxa la dhihi jiray ninku miyuu ku dilaa waa maya miyuu ku caayaa maya waliba caayda wala si kala qaadaya miyuu ku nasab caayaa maya biilkaaga iyo masaariftaada iyo noloshaada ma maareeyaa ha bas adaa gardaran wixii kale waa wax la xalisan kara waaye marka waxaas oo dhan wuu soo hoos galayaa waxa kamid ah in gabdhaha waxbarashada loo diido waa tacadi waa wiilka la sameeyay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri an-nisaa'u shaqaa'iqu ar-rijaal gabdhuhu ragga ay la dhasheen ama dhinac kale hadii loo dhigo gabdhuhu waa dhinaca yaani ragga dhinacoodii waaye macnaha laba qofku laba gabal waaye dhinaca midigta dhinaca bidixda gabadhu marka waa dhinac kaamid ah marka dabcan asxaabta ay qayb gali doontaan hadalka waxaan baynayaa تعدية فربنا بتشير كلا يا تعدية أصلا الدين إسلامكو يدقق سوبامبا ميل بو نجا ساري هذه أدب ما سنتها أدب ما سنتها هاي وحن روائن أنسيو وحن أنكسيو الشيخ مولد بل وحال لقيا بأن قيام بدنه بالشدة كم ده سؤال كذا لا تومر كلو عليو أن لا قرما أما لا ضوض بحقوق ذا هبلها وحيس ودين مدن مركا ما تعدي للشيء إن قبلها لو لقوا ما واحد شراء أو بالشدة إن أو بهنتها إن لو وعي جليا مسوا واحد لقيا وإن دتك قارك ده إصلاحان كليا واح تديو كلا نوصل من جوريان ولقيا وإن وطبعا ولقيا إن مقشة هيدا كش قيء يحاول نوعسا ما هي واحد شراء أو بالشدة إن أو بهنتها إن لو وعي جليا تعدي كذا قبلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركب وبعد حان أمهد علينا يا إله سبحانه وتعالى إنه يسوكني مجمعا مركب حكتب وزارة أرمها قيسك أرمها هوانك حقوق الإنسان كي أرمها قيسك دولة قبلتك جبلانيو بعض يلقي بجلس ضدا wacyigelinta halkan inaan ka jeedino galabtaan ugu fadhino ugu horeeyo Sheekh Cabdullaahi iyo maxay ahayd ururka haweenka gabdhaha ka socda sidoo kale waxaan u mahad celinayaa warbaahinta ugu horeeyo daadihiyaha gruubka barnaamijka iyo dhammaan inta meeshan ka soo qayb gashay intaas kadib Yaxya su'aashaadi weydiisay haddaan ka jawaabo haa way jirtaa tacaddi u jira laakiin labaan u kala qaadayna tacadigu wuu dhacaayo bariyahan waxaa badan in maaragtay gabdhihii iyo dadka ducafada uu ku dhaco tacadi xagga jinsiga ah waa jirtaa wayna jirtaa min guurinta la sheegina way jirtaa labadaas baan u kala qaadi lahaa waa mid koobaad ee waxaan ka maqalaa baraha bulshada ama aan aragnaa tacadiyo ka dhanaa xuquuqda yani maaragtay bini aadamka oo lagu la kacayo gabdho arkaysa la kufsaday la dilay kufsi iyo dil la isugu daray la aflagaadeynayo baraha bulshada si aan saxayn loo isticmaalayo waxa soo dhan waa tacadi waxa kale oo jirta in la buunbuuniyo oo laga sii badbadiyo markaan leeyahay la buunbuuniyo tacadigu uu dhaca una dhici jiray sida uu Sheekh Cabdullaahi sheegay uuna dhici doonaa intaan jiro bini aadamkuna yaani maaragtay ma wada saxano sideedaba dadka in xunna waa laga helaa in wanaagsanna waa laga helaa inaga ka bulsho Soomaali ahaan waxa xaqiiqaha in bulshadeenu ay aaminsan tahay markaan hadda doodahan oo kale ka hadlayno waxyaabo badan oo ku dardaritaan oo dad kale ay ka dambeeyaan inay jiraan waa sida la qabo laakiin صح ما هسيداسي وحوي وجرا تعدي إن لقى هذلنا وصح ضد هذا إن ما ركتاي لقبته آدي رسول دويننا لكن وإن ما ركتاي لو وصل كل بس يجيره
intaasaan dhihi lahaa waad mahadsantahay. aad baad u mahadsan tahay mudane mawliid. waxaan rabaa in aan ku siiyo marwaluul. mawliid wuxuu dhahay waxyaaba laga yaabo in laga badbadiyana way jiraan, xadgudubkiina indhaha lagama qarsan karo. haweenka si gaar ah ayaad ula shaqaysaa ururada haweenka ka dhisan dowladda Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo. bal waxaan rabnaa intaad ka shaqeynaysay howlahan tacadiyada aad aragto ama aad la kulanto gabdho lagu la kacay nooca ay yihiin maxaa u badan sida uu sheegayo mudane mawliidna ma ka badbadis baa jira mise waa wax dhab ah oo jira oo u baahan in wax laga qabto? bal labadaas su'aalood israacso. bismillaah waxaan salaamayaa dhammaan ummadeena wada fadhido salaanta islaamkan ku salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan kaloo mahad u celinayaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo noo fududeysay in aan doodan ka soo qayb galno, iyo waxaan salaamayaa bahda saxaafadda dhammaantiin. haddaan u soo noqdo su-aashii ahayd maka badbadinba mise tacadi, horta wuu jiraa tacadiga. maalmahana wuxuu u sii batabo si zaa'ida xadgudubka, mid indhaha laga qarsanayana maaha. ha noqoto xag miidiyo, ha noqoto xag kale, waa loo jeedaa haweenka xadgudubka lagula qaadayo, haweenkii la dilaayo, gabdhihii intii la kufsado dil loogu daraayo, caruurtii oo la leeyahay haddana waa la kufsaday oo dugsigii iyo waxyaalihii. dhibaato tacaddaa way jirtaa, wax ka badbadinna ma ahan. waa wax hadda nagu soo ziyaaday oo anaga aan dhaqan hore aanan u lahayn, oo meelu ka yimid haddana aanan garan karin iyo danta laga leeyahay. waxa waaye waa zaa'id bay nagu noqotay dhibaatadaasayto. waa tacadi soo kordhay aan aniga leeyahay. waxaana jeclahay in tacadigaasayto aan iska xil saarno, bulshadana aan ka wacyigelino, hal meelna aga soo wada istaagno si hadda uusan noogu sii faafin ee aan u xakameeno insha allah. aad baad u mahadsantahay Zahra. waxaan ku siinayaa su'aal aan rabo inaad iyadana wax yar nooga sii iftiimiso saameynta laga yaabo in tacadiyadan ay ku yeeshaan gabdhaha yaryar iyo dumarkana inoo sheeg, bal noocyada ay noqon karaanna inoo raaci. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيجا قيب قلياشة دوت برامج كقلبته وزارة هوينك يبهذا ورباهنت أنت وإن سلامية. مركي حكتا هذا أنقلوا معناها سامين أنت لاقي أي واحد جذب كويا لنكره هوينك يقبلها بقى سامين تقويا لنكره وواحد اسكو أجنها حد جذب كهرت حد جذب أفكار على الشجاع موالدها لكن قيب بدن وكربها حد جذب كقفك وح جاري كرو مد متقنا جراح الدل اللي جارسيو mid mataqaana in qasab gabadhii sida kufsiga oo kale uu ka mid yahay, mid waxbarasho xuquuqaadka asaasiga ah qofka inuu waayo sida waxbarashadii caafimaadka iyo barnaamijyadii oo dhan oo qofka xuquuqaadka asaasiga caadiga ah uu lahaa. marka qofka saameynta uu ku yeelan karo waxaa ka mid ah qofka inuu dareemo cabsi fara badan, inuu dareemo mataqaana qaab mentally ahaan. horta waxaan u kala qaadeynaa mentally iyo mataqaana iyo physically iyo socially aan kala qaadeynaa. mentally markaan soo eegno qofka inuu cabsi fara badan dareemo, walwal fara badan dareemo, murugo dareemo, iyo barnaamijyo badan inay ku furmaan asaga heer uu isla gaar inta badan inuu qofka isla hadlo ama mararka qaar uu waasho. waa halka la dhaho ragga halka ay ku dhamaanayaan dagaalada ama qaarkood ay jacayl u dhintaan, haweenka waxaa ka badan inta haween ay murugo u dhimanaysa yani iyo stress maskaxiyan ay u dhimanayaan ka badan oo meesha loo mararka qaarkeed. markaan soo eegno marka bulshadii oo kaleeto qofka waxbaa gaaraya bulshadeena waxaa jiro dhaqamo iyo caado ay aaminsan yihiin ama diinta ay kaga sii xoog badan yihiin diin iyo mataqaana mid gaal iyo mid muslimna sad iyo raad aan ku lahayn. qaarkood waa kuwa xun oo mataqaana waxyaabo qaarkood oo xadgudub oo aad u xun weey. tusaale haddii gabadha dhib gaaro ama wiil dhib uu gaaro in qofkii la faquuqo dadkiiba laga saaro, kan waa kii camal la dhaho ama barnaamijyo kaleeto loo saariyo. familiga oo kaleeto in mataqaana dhibaato qofka ka soo gaarto oo familiga shakhsiga ay wada nacaan oo qofkii naceeb uu galo, naceeb bulshadiisa uu ka soo bilaayo familiga iyo dariska iyo wixii la mid ah. dhaqaale ahaan markii la dhaho qofkii waxaa ku dhacay mataqaana kow inuu horto waxbarashadii uu wada hataa inuu ka haro oo stresskaas aawadiis inuu noqdo school drop inuu noqdo oo waxbarashadii sida uga haro oo qofka iska noqdo qof mataqaana درب جيف عمله إسكان قد عمو وكذا عمل نورشب وكذا عمل ركقار وكسكتا مركز سامين تا إسلامها وكويا لين كره وين كي قبلها مد متقنا لسوكو بكرة أم مش لسوكو بكرة أنا ماهن مركز إن شاء الله وعلى جتور تيجي دانا.
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaa sidoo kale aan rabnaa in aan baraarujinno in daawadayaasha ay ka qayb qaadan karaan iyagoo fariimahooda inoogu reebaya bogagga aan ku leenahay baraha bulshada waxaa sidoo kale aan ka qaybgalayaasha doodan aan xusinaynaa in doodu ay tahay mid furan oo haddii ay jirto cid wax ku daraysa mar walba mikrofoonka inuu furan waxaa sidoo kale aan baraarujinaynaa in si walba oo ay ahaato in mawduucan uu yahay mawduuc muhiimadiisa oo xambaarsan isla markaana ay tahay in wacyigelintiisa aan wadno oo aan ka dagaalano inta ay jirto gabadh Soomaaliyeed halba ha ahaatee oo iyadu laga yaabo inay la kulanto tacdiidan su'aasha labaad aan rabo in aan siiyo Sheekh Cabdullaahi waxaan Sheekh Cabdullaahi in iyadana aad wax yar inaga tiimso waxaa laga yaabaa in bulshadu ay kala nugushahay tacdiidan aan leenahay gabdhaha way la kulmaan salahan waxaa la sheegaa in boqolkiiba 69 ka mid ah kiisaska la soo report gareeyo ama la soo sheego loo soo gudbiyo hay'adaha ku shaqala in ay la kulmaan gabdhaha iyagu ku nool xeryaha barakaca bal waxaan rabnaa bulshada in aad wax yar naga iftiimiso qaybaha kala duwan ee bulshada siyaabaha ay ugu nugushahay iyo wacyigelinta bal saameynta laga yaabo in ay ku yeelato ama laga yaabo inay wax ka bedesho marka dadka wax loo sheego in wacigooda ay wax ka bedesho waaqican taagan ay wax ka bedesho bismillaah yaxyaa dad mahadsan tahay su'aasha haddii aan ka jawaab isku dayna ka jawaabo waa sax waa loo kala nugul yahay oo December dhowr meelood oo nugushahay in arrintaas ay ka dhacdo meelaha dadka danyartii ay joogaan oo laga yaabo mararka qaarkood in danyarnimadka laga faa'iideysto waa suuragal waxa kale oo meelahaasi ugu sii nugul yihiin waxaa dhici karta badanaaba qaanuunka iyo ciidanka iyo dadka ilaaliya inaysan ku badnayn baa dhici karaysa tu saddexaad baa jirto waxaa suuragal ah dadkaasi inay baqaan oo aysan waxooda bacdaysan karaynin marka taasina waa iyaduna mid jirta waxaa kale مثلا بدنابا dadka hadda dhibaatada soo gaadhay waa dadka displaced ku dhaca macnaha waxa waaye barakacayaasha ah oo meeshii ay deganaayeen ka tagay meel kale aad hadda مثلا gabadha gaalkacay lagu dilay oo kale waxaan ka wada cafwan boosaas u dambeysay garaway ka tagtay shukaansi iyo waxba loo sheegay reer iyo wax in la guursanayo markay ay tagtay boosaas gaadhiba shirqo loo sameeyay waxa soo dhan horta asal ahaan shariicada islaamku waxay u sameysay يعني حلبة وسميسة وقبلها وحلا يد محرم لاين يسبحن قبلها لفته وحليبة هي إن تحدر أي موتشيان هرتا دبكان ودب جرا أو هذا إنك كسوماليان ما عدك دودي كرتو ديدي كرتو ليه كرتو مجران مجرتو أدي ويلو بانتها أو مالمهنا وحوين حركة يسوق وسطي أنا مركب حنا أركا إن لو شيء إن لوجه هرتي كرا وكان سو شيغاي ان waxan dhaqan kani uu dhaqan carabta dhaxdeeda ka dhex jiray oo ahaa carabta kaliya ma ahayn 1940 dhowrtii ingiriisku gabdhihiisa u gadi jiray beecbay ahaayeen sida caadi xoolaha kale seelada loo geyn jiray hindiyaanku nooc kale u dhaqmi jireen gabdhaha waxay dhihi jireen gabadhu asalkeeda waa nooc bacaw ah oo basharka lagu soo kordhiyay waliba waxay bacaw si arki jireen markuu ninkeedu dhinto waxay dhihi jireen waxa ugu fiicanay inay marka uu ninkeedu dhintay isgubto marka inta badan lama guursan jirin hadda carabta xataa dhaqamo xun baa ka jiro oo gabadha mar hadii la furo dib u dambeeyna loo guursanaynin dhaqankan marka waa dhaqan jiray marka koobaad shay wax lagu dagaalami kara waxa weeyaane in wacyigelin diini ah la sameeyo sidii ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa inoo sheegay wada bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi at-turab ala sa'a ma yahkumun إلهي سبحانه وتعالى وحدي فيه عن بارية دقيق حمداس قبلها لو لك عيي النبي صلى الله عليه وسلم يحدم بيده وين كل شيء ووادي البنات قبلها إلا آسو نك عربانة قبل يحيي ومن الذي منع الوائدات وأحيا الوئيدة فرزق مركو فاني نمك لو صاحبي أبو فاني يحيي أنا ولا ندير أنا نهاي قبلها الآسي جري يدك اللوجي سنجري من الدفاع جرني مرك شرف لو فاني هايد dadka qaarkood ay ku faanaan maxaa marka xal noqon karaya anu waxaan aaminsanay koow in la sameeyo wacyigelin diinaysan oo base u diintu u tahay midda labaad waxa waaye qofka haddii wax la baro wiilkii gabadhiiba way u baahan yihiin wiilkan iimaanka laga qaaday ee gabadha boobayana haddii diin la baro oo dhaqan suuban la baro oo la yiraahdo war gabadhu waa walaasha oo kale sida nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sameeyay
nabiga nin baa u yimid markaas wuxuu yaa rasuul allah anigu waan ku rumaysnahay wax kasta oo aad lagu soo daji waan aaminsanahay laakiin aniga geedka dumarka la yidhaahdaan ku falnahay marka waxaan kaa codsanayaa inta kale oo dhan salaada waan tukan waan soomi jihaadka waan aadi laakiin geedka gabdhaha sida awrka baarqabka aan isaga dabaasho aan isaga jeedo yani iidan li bizina bihadhihi alkalima eraygaasuu isticmaalay nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoon dharbaaxin ama aan canaananin ama aan la dagaalamin ayaa wuxuu ku yidhi hooye ma leedahay suu yidhi haa ma jecesha hooyada waxa in lagu sameeyo maya walaal ma leedahay qaraabadiisii oo dhan buu nabigu u tiri sallallahu alayhi wasallam ma jecesha in lagu sameeyo maya ninkii markiiba ilaahay qalbigiisii buu kaga dhaqay يعني waxa laga yaabaa inay daqiiqada ahayd baa laga yaabaa wacyiga diinigiina sidii waagi barakada uu lahaa waa rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ka baraka badnaa laakiin haddana de saameyn un buu yeelanayaa marka wacyigelinta in la sameeyo wiilkii gabadha labadaba lagu sameeyo gabadha marka xagee laga wacdinayaa gabadha in la yidhaha xijaabo markaad ragga la hadlayso I love you iyo isjajabintii faraha badnayd waxaas lama rabo waxaa la rabaa I love you sideeda waxaa loogu talagalay ma bacda satari wama fawqa sariir xaggaasaa loogu talagalay gurigaa loogu talagalay laakiin looguma talagelin banaanka looguma talagelin ilo fiid wax jira waayo raaliga hadaan wax yar dheereeyo waan yar raba xawaana baalkaystee midda kale oo rabno waxay gabadha inaan wacyiyo lafteeda wax barno oo diintii la baro oo dhaqankiisu banaan la baro oo ilaa aakhirihi wiilkay la mid tahay sidaas oo kale wax loo baro iimaankeedii la baro oo wiilka xataa haday tiraahdo guri ka galo ay dhahdo khaaf rabbaka war ilaahaga ka baq waa kana aayada quraanka u akhrido wiilku markaas ba waxa laga yaabaa in iimaan baa ku jirtee daciif baa ahaade waxa kamaysmaya waxaa ka mid ah oo shayga ugu muhiimsan ah in la fuliyo qaanuunka ilaahay ugu talagalay qofkii gabadh kufsada ama gabadh dambi dhibaato u geysta in maxaan ku dhahaayay lagu fuliyo shariicada islaamku waad ogtihiin markay zina dhacdo laba arrimood bay u kala qaadaa qofka inuu reer hore soo maray iyo inuusan soo marin hadduu reer hore soo maray shaabuug baa lala dhacaya boqol shaabuug baa ku dhacaysa hadduu reer hore cafwan hadduu reer hore uusan soo marin baan ka wadaa hadduu reer hore soo marayna dhagax baa lagu dilayaa shariicada islaamka laakiin kufsigu isagu kuma jiro noocaas ma aha kufsigu isagu ka duwan waa dambi ka weyn waaye waa qaadicu dariiqnimo kufsiga sidiisaba qofka hadduu ku dhaqaaqa isaga waa dil uun waa la dilayaa isagu ma gala labadan reer hore iyo reer damba midna ma galayo marka waa in qaanuunkaa la fuliyo waxaa kaloo ka mid a gabadhu inay intii suuragala gurigeeda ay joogto oo nabigu sallallahu alayhi wasallam gabdhaha iska daaya ragga ayuu wuxuu ku yidhi walyasaxka baytuka intii suuragala gurigaaga iska joog ilmahaagaad tarbiyaysan xaaskaagaad iskala fadhii waa kaas marka halkaasa in gabadhu ay ku sugnaato intii suuragal waaye haddii marka ay baxdo oo inay baxdo loo baahnana iyadoo xijaaban oo asturan oo xishmad iyo waqaar ku socdo oo aan haddii isgungundhin haynin hadday meel kastoo dhaqaaqdo inta dhaqaajisa ay suuqa dhaqaaqda haddii balaayo waraabayaal baa meesha fadhiya di'aab oo kusoo yaacaysa marka waxaan isleeyahay arrimahaas oo dhan haddii la sameeyo xal baa loo heli karayaa bulshadeennuna waxay u baahan tahay in arrimahaas iyaga ah laga dhabeeyo waxyaabaha faraha badan ee jinsiga laga hadlayana ummadii dee laga yareeyo oo social media iyo bale hadda mushkiladina haysta waxaad arkaysaaba islaam weyn oo caadi ah oo intay mud iyo adarar iska soo dhigtay dhex taagan oo leh waxa weeyaan war social media dhexdiisa waxa ka daawada marka haddii meesha sayn cadigeeli durdurisay gabdhihii yaraa marka maxaad u malinaysaan marka waxaynu u baahannahay inaynu qiyamka iyo akhlaaqiyadka aynu ilaalino si ay gabdhaheena u badbaadaan haddii kale waxa weeyaan dee wax gabar kasta iyo wiil kasta ku dhici karaya haddaan wiilasha la kufsamayno hadda kadib aan leenahayba aad u mahadsantahay si wanaagsan waan ku siinayaa sheekh mawlid waxaan rabaa waxaad ku dayayso adiga inoo raacinaya su-aasha aan rabo inaad inoo iftiimiso waxay tahay waan isla garnay inta caddiga uu jiro meel baan isla dhignay sidoo kale in diinta iyo dhaqanka labadaba uu ka soo horjeedo maxay yihiin marka caqabadaha laga yaabo in ay ku gadaamin yihiin wacyigelinta bulshada la wacyigelinayo isku dayga lagu doonayo in lagu joojiyo xadgudubyadan maxaa ku gudban xadgudubyadan haddii ay xaaraan yihiin haddii ay dhaqankana ka baxsan yihiin maxay u dhammaan laayihiin بسم الله الرحمن الرحيم واد ما تسنتها يحيى أرنتي هرا وحربا وحيرنا كدرو الشيخ أبي نور دمي بارك الله فيه سفي عن وجه الله تعدي هرتا وح يعني ما رتاي وقفك وحنا حقنا هين ولا وسمايه رنا هانتينا وسيدا وشيء دقمدي هرا عربادي يكوي جاهلي جابه ويجري وحاب إله سبحانه وتعالى وكان لو إذا الموءودة سئلت إنه ما أنت وحن كان لنا قف نولو دبلو جيستي أو أما ما ركتاي وحنا رالي هين لو سمي بينو كان لنا
laakiin kuwaas waxay samayn jireen qofkii oo nool oo gabadho aabbo hooyo leh baa inta la qaado god la gelin jiray oo laguga imaan jiray subxaanallah marka islaamnimadii iyo diinteenna wanaagsan waxay nabaraysaa gabdhaha inay yani maaragtay ilaashan yihiin qof kasta oo bini aadamana xuquuq u leeyahay marka waxa xaqiiqo ah innaga Soomaali haddaan nahay waxaan ka liidanaa dhinaca waxbarashada iyo maaragtay ii sheeg ilmaha inaynu geyno goobaha waxbarasho khaasatan waliba gabdhaha waan liidnaa dhaqankeennana ma aqaano meel ay ka keeneen diinteenna kolley gabdhaha iyo wiilashu way u siman yihiin sharciyan waxbarasho iyo xuquuqba waxay inuu daliil nabiga sallallahu alayhi wasallam yani ninba caruur laha saxaabiga marka islaamihiisa kamid ah waxay tiri wiilkayga waa in waxaas la siiyo wixii baa waxoogaa maaragtay ninkii lagu adkeeyay haddii aan waxaa la samaynin dee aniga layma jecla camar markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay u xakam tageen ilaa dee waxaa joogay mucallim haadii lumma joogay arrintii baa loo sheegay markaasaa wuxuu yidhi weliba waxay tiri ku dartay waa inuu markhaati ka noqda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka nebi maxamed baa loo tegey si loo markhaati geliyo waxaa la yidhi nabi allow wiilkayga hebela waxaan siiyey waxaas hebelaasi marka nabigu su'aal buu weydiiyey wuxuu yidhi caruurtaada ma wada siisay arrintaa ma ka sintay markaasaa wuxuu yidhi maya isaga keligii wey markaasaa wuxuu yidhi maya uu cadaalad samee caruurtaada waxay inoo cadaynaysaa ilmaha gabar iyo wiil qof kasta oo muslim ah ama Soomaali ah haddii uu gabar iyo wiil ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey iyo haddii uu gabdho kaliya siiyey haddii uu isugu daray waxa weeye waxa la rabaa in loo cadaalad sameeyo wiilkan haddaad maanta wax u geyso gabadhii inaad u raaciso gabadhii haddaad waxbarasho geyso wiilkii inaad waxbarasho geyso wiilkii haddaad waxbarasho geyso gabadhii inaad geyso haddiiba ay gaareen maxay ahayd arrimahaas arrinta kale oo run ahaantii uu taabtay Sheekh Cabdullaahi waxaa ka mid ahay barakacayaasha iyo meelaha hadda ugu badan oo tacadigu ay ka dhacaan waa goobaha barakacayaasha iyo dadka danyarta ah waana xaqiiqo arrintaa way jirtaa ani daris baan lahaan jiray goob barakacayaal degan yihiin baa waxaan daris lahaa magaalada Kismaayo marka hadee waad yaabaysaa waxa ka dhacaya dhibaatada ka jirta iyo duruufaha ku gadaaman dadkaas looga faa'iideysanaya yani maaragtay in lagu xadgudbo marka arrintaasi waa sidaas way jirtaa waxaanan run ahaantii aan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan arrinta la yaab kale aan maalin dhaweyto baraha bulshada ka hadlay shalay bay ahayd baan maleyn waxaan arkay nin sargaal booliis oo ka hadlaya meel ka mid ah Soomaaliya oo leh waa Soomaaliya bay taaniga meeshaas soo ka hadlay wuxuu yiri gabar baan nin shukaansaday mudday wada socdeen ninkii markii u dambeysay malaha xiriirkii baa yara xumaaday telefoonkii bay ka qaban weyday waxba isir bedelay gabadhii buu u soo baxay gurigu ku soo garaacay gabadhii uu dilay faas buu ku dhuftay qoortuuba ka jaray malaha sidaas ku dhimatay gabadhii tacadigaas isaga ah waa wax xaqiiqo oo jira waxaan dhaqan u lahayn innaga Soomaali ahaan dad waxaynu ahayn inagoo run ahaantii xataa aynaan fiirinin badiiniyan baan dhaqamiyan waxay noo mamnuuc ahaa yani gabdhuhu waxay ahaayeen meelaha birmageydada oo loo geli karin ayay ka mid ahayn wiilka Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed agtiisa laguma afxumeyn jirin laguma faraxumeyn jirin laguma maaragtay qashqashaadi jirin dhaqamadii hore maxay marka u joogsan lahayn tacdiyada caqabadaha hortaagan waxaa ka mid ah run ahaantii dhaqankii Soomaaliyeed baa wax ka qaldan yihiin yani haddii dhaqamadeennii iyo diinteenna aan ku dhaqanno waxa weeye wax baa hirgeli lahaa u joogsan lahaa waxaa kaloo oo jirta sideedaba tacadigu wuxuu u baahan yahay haddii uu dhaco meel dib uu ka dhaco wacyigelin iyo maaragtay in dadkii wax la baro ayay u baahan tahay waxyaabaha ugu horeeya oo tacadigaas inuu joogsado ka horgalka waxa weeye jahliga ka mid ah yani aqoon la'aantu waxay sababaysaa bulshadii in waxyaabo xunxun oo aan hore u jirin ay la soo baxdo ama ay ka qaadato dhaqamo xunxun meelo kale marka ani waxaan isleeyahay waxyaabaha ugu horeeya oo arrimahaas ay u joogsan laayihiin jahliga
iyo arrimaha dhaqaalaha oo hooseeya awgood iyo nidaamkii dawliga ahaa oo meesha ka baxay oo gacan bira wixii ku qaban lahaa aan la haynin arrimahaasaa ka kow aan lah waan ku iman doonaa aad baad u mahadsantahay waxaan daawadayaashana ka raaligelinaynaa inaan isku dayno in barnaamij aad u ballaaran aan muddo kooban gudaheeda kusoo kooba isleenahay waxaan laga yaabaa in qodobo aan ka tagno sidaan hore idinku sheegnana wixii aad isleediin way mudan tahay inaan ka hadalno waxaad igula soo wadaagi kartaan baraha aan ku leenahay baraha bulshada ama ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada bogga facebooka ee wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kaleba ciwaanada idinka muuqda shaashada inta aan barnaamij ku guda jirno waxaan rabaa waa ku soo laaban doona marwaluul waxaan rabaa su'aal caafimaadka la xiriira inaan siiyo Zahro bal waxaan rabaa Zahro inaad wax yar nooga iftiimiso waxaa laga yaabaa gabadha in aysan marar badan u suuragelin inay sheegato dhibaatooyinka laga yaabo inay la kulanto ma jiraan waxyaabo lagu dareemi karo ruuxii haddii uu arko gabadha in ay sheegan laadahay laakiin ay la kulmayso tacadiyo haddii ay noqon lahayd guriga iyo meel kaleba ay kala kulmayso bal calaamadaha lagu garan karo ruuxa asagoon sheeganaynin in tacadiyada uu la kulmayo بسم الله calaamadaha lagu garan karo qofka inuu tacaddi soo gaaray hawa yaraatee waxaa ka mid ah qofkii mataqaanaa sidiisa hore caadiga dadka la nool marka guriga kula nool ayaa fahmi kara sidiisa hore caadiga qofku uu ahaan jiray haduu lacal uu sheekeen jiray ama farxaan uu ahaa inuu ka duunaado oo wajigiisa ay ka muuqato body language waxa la dhahaa jiro oo qofku waxa soo gaaro ama ay muuqan marka ayada laakiin laga dareemi karo oo wajigiisii iyo haduu furfurnaan jiray uu isxirxiro hadii mataqaana qofkii aad dareemi karto inuu wax soo gaaray cid wax dareemi karto yani cid wax soo gaartay yani waxa laga dareemi karaa jir ahaan laga dareemi karaa qofka wajigiisa oo qofka isbedelo qofkii oo laga dareemaa inuu cabsi iyo waxyaabo fara badan inay ku jirto mararka qaar qofkii oo kaligiis meel fadhinayo oo dadka ka dhaxbaxay bulshada iska dhaxsaaray oo meel kaligiis fadhinayo ama qol inuu kaligiis isku soo xiro jecel oo mar walba loo yeeray leeyahay hebelow iyo halkee ka baxday mararka qaar marka asoo kaligiis ka kor dhacda qofkii inuu isku naxo oo kaleeto oo naxdin uu dareemo oo kale si dhibka soo gaaray oo wadeed uu dareemayo taasna waxa sabab u ah leeyahay dhaqamooyinka iyo caadooyinka qaarkood ee Soomaalida laga soo minguuriyay sida dad ay sheegayaan culimada iga horeysay carabta iyo meelo mataqaana iyo maxaa la jiray wadamo kale taba marka dhaqamadaas waxa kamid ah in gabadha marka horeba loo arko inay tahay qof ceeb ah yani in loo arko markay dhalatabo waxaa macnaha waa lagu farxan la inta badan markay soo korto waxay ku soo barbaaraysaa aamus iyo hadlin iyo hoos fiir iyo cabsi iyo caaga jugleen iyo mararka qaar canaan fara badan qaabka barbaarinta naftirkeeda Soomaalida ilmaha waa ka qaldan yihiin jiilkeena hadda anaga ma iska bilaawna ee jiilka naga sii dambeeyaba waxa way barbaarinta ilmaha in laga duwa qaabka hore loo barbaarinaa waayo wiilka mar walba waa ordaya waa ciyaaraya ficiisu la ciyaaraya biloon iyo kubad meel kale uu kasoo daw wareegsanaya wixii ku soo dhacay inuu soo sheegaa laga yaabaa laakiin waxa dhici karta in gabadhii mar walba uma taqaanaa laho waxan waa ceeb ha ka hadlin inan baa tahay hoos fiiri saan weeyo waxa ku afcalin walaalka sidan ha oo hadlin saan ma ahan wax walba in cabsi yani marka dama gabadh wax walba soo gaaro ee la aamusto la dhaho gabar waati macnaha wax walba ee aragtaba qarisa wax walba ee aragta la aamusta marka waxa dhici karta marka wixii qofku markuu soo gaaro inuu xishoodo waayo xishoodka guriga laga tusay yani xishoodka ma ahan kan oo mataqaana ilmaha lagu tarbiyana ma mid xadkiisa dhaafay oo ah qofka inuu qarsado waxyaabaha halis ah laakiin hadii ilmahaaga adoo tarbiyeenaayo oo wanaagii iyo diintii akhlaaqdii dhinac walba ku tarbiyeenaa waa ina bartaa inuu sheegi karo waxyaabo qaar waa ina tababar guriga ku siin kartaa yani wax hadii soo gaaraan banaanka wax kala soo kulmo gabadha waxa way ka duwan tahay wiilka marka dhibka soo gaar markay gabadha soo yar kuusato waa in lagu barbaariyo ama lagu aqliyo qofka ahaan aabaha ama walaalka ee sidan ku yiraahdo ama sidan kula dhaqmo ama waxyaabaha kale la soo kulanto yani waxa jiro wax la dhahayo body bad tajina jirto meel xun jirka yani qofka bil aadanka laga taabto sida gabdhaha kale in aad loola taliyo hooyo saaxiib gabadha la noqoto aabi inuu saaxiib gabadha la noqdo oo waxba qarin markii guriga soo gasho waxa maanta soo gaar waxa la soo kulmay lala sheekaysta ilmaha waqti la siiyo orod halka ka orod inta ka dhac iyo barbaarin qaldan yani oo ka jirto Soomaalida dhexdeeda sababtay in wax badan ay qarsadaan ama mataqaanaa qofka ayada in lagu garan waayo mararka qaarkood hata calaamado lagu dareemi waayo qaar waxa jirto kala soo kulmay tacdiyo goobaha waxbarashada meel walba ha noqotay markay guriga imaadaan ay dhahaan lacala way sheegtaan baata mararka qaar macalinkaas aan soo yeelay ama waxaas ama qofka dariskaas aan soo yeelay waxaas caab way aamus in la dhaho qofka afkii lagu dhufto oo jug laga sii gabadhi ama la dilo loo sii caga juglay soo iska sii qarsanaya marka waxyaaba qaar
marka waxaan isleeyahay barbaarinta guryaha in la bedelo wax laga bedelo aan isleeyahay xoogaa aad baad u mahadsan tahay marwuliin waxaan rabaa in aan ku siiyo bal su'aal waad inoo raacinaysaa waxaan rabaa sidoo kale bal wax yarna aad inooga iftiimiso maadaama aad tahay aad la shaqayso ururada haweenka laga yaabo inaad uga dhowdahay tacadiyada laga yaabo inay gabdhaha la kulmaan bal waxaan rabnaa inaad noo iftiimiso baahida saxda ah meesha ka jirto halkii loo jihayn lahaa dadaaladan ay wadaan hay'adaha ay wado dawladda ay wadaan qaybaha kala duwan ee bulshada bal maxaa loo baahan yahay waxaa baahida hadda loo baahan yahay si looga hortago tacadiyadan ka dhanka gabdhaha ama gabdhaha ay la kulmaan maxaa loo baahan yahay in la qabto بسم الله horta marka hore baahida gabdhaha looga faa'iideysanayo waxay tahay waagi hore waxaa la haystay nolol dhaqaala la haystay hadda waddanka dhaqaale ma jiro wuu burburo dayaca koowaad waxaa keenaya hooyadii oo sidii ragga u shaqaynayso aroortii guriga ka soo tagayso shaqadii soo aadayso waqtiga ay tagaysana ay tahay waqti taardi ah oo ama habeen ah ayaan la kulmi karin reerkii iyo wixii gadaal iyo wixii dhibaato ku dhacay in marka waxaa iskeenaysa in meeshii iskaashigii hooyadii iyo caruurtii iyo wada shaqayntii inay halkaa ay isku haleeli waayaan midda kale waxaa jirto in hadda anoo dhaqaalo ma jiro in gabdhihii loo diro shaqo ama guryo ay ka shaqeeyaan ama hoteello ay ka shaqeeyaan ama meelo ay ka shaqeeyaan iyagoo waalidkii uu ka raadinayo inuu garab istaago oo dhaqaaluhu halka reerkii ay ka soo kabto taas ayaa waxaa keenaysa marka in baahidii looga faa'iideysto gabadhii oo looga faa'iideysto ama ay halka ay dhibaato kala soo kulanto midda kale in dhanka guurka oo kale gabadhii been loo sheego oo la yidhahdo waa ku guursanayaa ama saan waayo ama kaale reerkeena ku soo barana in halka ay dhibaato ka soo mutaysato marka sidii looga hortagi lahaa ama loogu waxeen lahaa waxay la tahay in wacyigelin badan la siiyo sida hadda dhaqankii caruurta ma fahansana in iskuulaadkoo kale oo waxbarashada dhaqankeena uu ku yaryahay lama baro caruurta dhaqanka waa in waxbarashadii lagu soo daraa dhaqankii oo caruurta loogu sheegaa dhaqankeena hore wuxuu ahaa iyo calaamadihii iyo heerka uu dhaqankeena taagnaa sharafta uu lahaan jiray waayo cunuga markuu iskuulka waa ubax yaroo soo baxay marka la tuso dhaqankiisa waxa uu diidan yahay iyo waxa uu ogol yahay halkaas ayuu cunuga uu ka soo qaadanayaa maxaa la dhahayay maskaxdiisii iyo aqligiisuu banaa iyo dhaqankii wuxuu qofki u kala yahay loo kala tuso ama loo kala nisbeeyo halkaas ayuu cunugii wadadaas markaa tusto ama macallinkii uu soo tuso cunugu wuxuu raacayaa wadadaas inay toosan tahay wadadan kale ay qaldan tahay marka waa in wasaaradda waxbarashadoo kale dhaqankeenii lagu adkeeyaa la tusaa laga bayaaniyaa midda kale culamaa udiinka naftinkooda ama odayaal dhaqameedyadoo kale ama culamaa udiinka waa inay tagaan iskuulaadka waa in waqtiga iskuulka aan la gelin ee subaxa hore ah ilmaha ay fareeshka yihiin la wacyigeliyaa loo sheegaa la toosiyaa lagu tarabiyeeyaa wadada loo sifraa marka waxaan garan karaa markii uu cunugii macallinkii iyo culamaa udiinkii iyo isku tagaan oo dhaqankiina la tuso inay toosaysan tan ugu koowaad ee aan leeyahay waa lagu toosin karaa ama lagu toosin karaa middaa inay tahay asalaamu calaykum aad baad u mahadsantahay qaybtii u dambeysay ee doodeenna ayaan daawayaal isla soo gaadhnay waxaan idin siinayaa min hal su-aal oo aan rajayn inaad min 2 daqiiqo ku soo koobtaan waxaan rabaa xalka bal waan ka soo doodnay caqabadaha laga yaabo inay ku gadaaman yihiin saameynta ay leedahay markii biyo dhaca doodeenna xagee waxay naga jiraan sidee xageen u jihaysanaa bulsho ahaan sidee lagu yareyn karaa tacadiyada ka dhanka haweenka qayb walba bulshada ka mid ah dawladdii hay-adihii ku shaqo lahaa ururadii bulshada rayidka xagee loo jihaystaa maxaa lagu hortagi karaa tacdiyadan ka dhanka haweenka بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله horta su'aal marka dhawta aad weydiisay ustaadka ayaa waxa ahayd maxaa caqabada hortaagan waxa waaye dhaqanka laftiisa dhaqanka Soomaaliga ah wuxuu dhiirigeliyaa waxyaabo fara badan oo khaldan markii dhinaca dambiyada la yiraahdo waa sax dhaqan badan oo suuban Soomaalidu way lahaan jireen laakiin marka laga hadlayo xagga dambiyada Soomaalidu dhaqan khaldan bay leedahay dilka oo kale مثلا ninba dulmigu qof ku dilayaa waliba uu hanjabayaa marka hore wuxuu leeyahay wallahi neef baa iga soo ka aadaya
markaasaa weliba intuu qofkii dilo tolkii bixinaya waxaa laga yaabaa xataa inuu magtii hore bixiyo oo tan xataa waxbaba aan laga qaadinba dhaqankaas ayaa horta meeshii ku jira sidoo kale gabdhaha kufsiga markii loo geysto ama tacadiba ilaan tacadiban hadda ka hadlaynaa waxaa caado ah siyaabo lagu xalliyo oo xeeran oo iska bedegsan baaba jiraba oo qaanuunka ka sarreeya waxyaabaha dembiga ana sideedaba laguma xalliyo taqaaliid iyo dhaqamo laguma xalliyo qofku haddii sideedaba dembi qof uu galo waxaa jira waxa la yidhaahdo xeer ciqaabeed iyo xeerka madaniga ah xeerka madaniga ah xoolo la kala qaaday iyo waxaas iyo farsamo iyo maxaan ku dhahay gabadh ama la furay ama meherkeedii lagala maqay wax iska caadi oo normal ah oo la xallin karo waaye laakiin markay timaado in naftii qofka dib loo geysto waa in qaanuunkii lagu dabaqaa qaanuunka waa in lagu dabaqaa weliba anu waxyaabaan aaminsanahay waxaa ka mid ah wiilkii gabadh kufsada public meel ah oo ummaddu wada aragto oo aargo oo kale ah waa in lagu toogtaa baf dhiiggiisa oo qubanaya waa in la arkaa ma garatay sababtoo dembiga uu geystay waa wax dhulka iyo cirkuna uma gelgelinayaan yacni waxa weeyaane gabadha iyo wiilka hadday is ogol yihiin iyo haddii uu kufsado way kala dembi wey yihiin labaduba waa dembi ilaahay laga galay laakiin marka ay is ogol yihiin iyo marka uu bahalkii saas aad bay u kala fog yihiin marka dhaqankaas noocaas ah ee ah in la iska sameyn xidho oo la yidhaha gabadhii yani subxaan allah waxyaabaha la yaabasa waxaa ka mid a gabadhii baa ninkii loo guurinaya mujrimkii afqalaxaaya gabadhu intay diiday shalay maxaan ku dhahaay ay tidhi kuma guursanayo ayaa intuu gabadhii kufsado oo uu hilbaheedii cuno ayaa haddana la leeyahay waa lagu asturayaa marka abaalmarin baaba la siinayaa taas marka waa mid arrintaas iyada marka waxa weeyaan waa in qaanuunkii waa in la dabaqaa waxaa kale oo sida maamaduba ay sheegtay aqoonteenna iyo tacaaliimteenna dhinaca diiniga iyo dhinaca maadiga kulligood waa in qiyamka wanaagsan la baro waxa ay soomaalida hor ku maamaahi jireen xataa hooyadu waxay dhihi jirtaa leeyahay gabadhaada iyo wiilkaagu markay israacaan hooya marka gabadheeda la dardaarmaysay wiilka xataa gabadha walaashii ah ayaa waxaa dhici karta shaydaanku inuu balaayo u qurxiyo marka waxay tiri hooye markaad meel cidla maraysaan ee walaalkaa kula socdo waxaad uga sheekaysaa hooye iyo aabba iyo waagii aynu gurigeenni hebel ahaa iyo walaaltinimadkii uga sheekay walaaltinimadkii shucuurtaa dareensi marka dhaqankii suubanaa in loo laabto ayaa wanaagsan gabdhaheenana waxaan leenahay sida hadda ku socdaan anigu waxaan aaminsanay sida hadda ku socdaan gabdhaheenna sabab u yihiin waayo fiidkiiba iyagoo caarsaanya badeed aad moodaysa inay soo yaacayaan hadda maandhowta muqdishoan ka imid waaba yaabayba subxaan allah ragga suuqa soo aadaya waxaa ka badan gabdhaha wada qaawan ee caariyaadka ah ma koobayee dafaan ka dhigay ikaadii gabdhaha caariyaadka ee suuqa u sii yaacaya ayaa ka badan marka waa in dadku ay xishoodaan oo wiilku xishoodo oo gabadhu xishooto oo gabadha gurigooda joogto ilaa aakhirihi hooyooyinka laftooda waa inay og yihiin wiilashooda meeshay ku maqan yihiin waa inay og yihiin gabadha iska badaaye aad baad u mahadsantiin si wanaagsan sheekh mawlid isla su-aasha bal dardaaranka ugu dambeeya sidee tahay inaan kaga hortagno tacadiyadan بسم الله الرحمن الرحيم runaaantii waa sida uu sheekhu sheegay tacadigaas iyo dhibaatooyinka taagan oo xuquuqda bini aadamka ka dhanka ah waxaynu kaga hortagi karnaa un inagoo ku dhaqana diinteenna suubansa oo ilaahay subxaanahu watacaala inoo soo dejiyey taasaan kaga hortagi karnaa dardaaranka aan siinayo bulshada waxaa weeye bulshadu inay yani maad aragtay waxay ka kooban tahay oo ka soo asaasantaa waalid bay ka soo asaasantaa aabbiyo hooye waxaan leeyahay carruurtiinna waxbara dhaqanka wanaagsanna bara qofku inuuna qof kale ku xadgudbin na bara sida la sheegayena yani maad aragtay sideedaba waxaa la yidhi ritiga dambe ritiga hore socodkiisuu leeyahy qofka waalidka hadduu hagaagsan iyo qof wanaagsan oo saaxiibul akhlaaqa uu yahay inta badan boqolkiiba 90 ilmuhu ugu wanaagsanaada haddii uu ilmihiisa yani maaragtay uu ku arka dhaqan xun dee uu ku dayanaya meel lagu daydo waalid oo maaragtay ka koraysa ma jirto marka guriga la joogo marka waalidow adigu is hagaaji carruurtaada hagaaji inta deriskaaga ah wax u sheego waani innaguna maaragtay bulsho ahaan odayaasha dhaqanka culamaa diinka dawladda oo gacanta ugu muhiimsan leh waxaasoo dhan waxaan leeyahay nin walba qaybta kaaga aadan ka qaado taasaynu ku badbaadi karnaa oo xalku u noqon karaa ummadana aynu maad aragtaa cirdigooda iyo sharaftooda iyo nasabkoodaba aan ku badbaadin karnaa hada wasala allahu wasalam calaa nabiyina aad baad u mahadsantihiin marwaluul sidoo kale waxaan idinku siinayaa kelmadaada u dambeysa sidee looga hortegi karaa tacadiyadan maxaan ku yarayn karnaa gabadfallada gabdhaha lagula kaco
بسم الله waxaa lagu soo yareen karaa in ay dawladda horta dhamaystirto sharciga qabyada ah tacadiga bulshada rayidkaana in ay gacan ka siiyaan dawladda wacyigelin badanna la siiyo hay-adaha deeqbixiyaasha ah iyagana waa in ay bixiyaan qarash sidii loogu soo yareen lahaa looguna soo afjari lahaa ayaa aniga isleeyahay way ku yaraan karaan waalidkan waxaan leeyahay labadaba waa inay xisaabtan sameeyaan waa in ay caruurtooda waqtiga ay ka maqan yihiin iyo waqtiga ay la joogaanba ay xisaabtan sameeyaan aabahana uusan ku daynin hooyadana ayaan ku daynin caruurta markay helaan la xisaabtan wuu xakameysmaya insha allah biidnillahi kariim intaas ayaan aga baxayaa marwo zahro dardaaranka ugu dambeeya بسم الله waxaa lagu yaraan karaa isleeyahay maxaa dhici jir in la dagaalamo waxa hadda soo kordhay aad u farabatay technology loo yaqaan social media baa u darnaaday cunugiyo mataqaana primary dhamaan telefoon weyn oo smart intii loo dhiibo iskuulka dhexdiisa in lagu nikiyaa la maray hadda heer waxaan gaarnay yani ani ilaa iyo mataqaana jaamacad aan ka bogaa mobile ma arkin indha ma saarin yani haddana mataqaana heer waxaa la gaaray yani waxbaan ka baranaynaa waalidka inta badan waa la mara habaabiya waxaa la waxbaan ka baranaynaa cilmi baa ku jiro waa la ogyahay inuu cilmi ka buuxo laakiin cilmi ma jiro cunuga mataqaana galaas shanaad iyo afraad dhigana mobile loo weyn loo dhibo cilmi uu ka barana ilaa abuurto ma jirto in la control waxyaabo kale oo scientific oo wax lagu baran kara jiro qalabada jiro oo geometricas iyo mataqaana iyo calculator iyo adduun kale alaabo kale oo lagu bartaa jirto dugsiga sare hadda waa la waashay yani si loo kala magaalada ka sii weyn tahay waa loo kala daran yahay waa dareemisa muqdisho daraad 8,000 oo arday ka dhacay dugsiga sare kismaayo ku xigtay iyo magaalooyinka weyn ee soo xigay yani waxa ka dareemi kartaa inaysan waxbarashada ku jirin technology-da iyo mobile iyo wax casri ah meel walba meel ay ka sii tuurisan tahay ay ka sii mataqaana barakacta ama uu ka rafaad badan cunug walba iyo cunug ka sii gaajeysan uu ka kaalin sareeya ama uu kaga jiraaba boqolka arday ugu horeyso ee Soomaaliya sanadkan soo baxday waa 100 arday oo duruufaysan ee mobile ah haysanin oo lacag fiican ah helin ee bas aan raacin yani waa la dareemi karaa waalidka in la mara habaabi ma nolol mobile wax lagu barnaaya iyo mobile loo baahan yahay group as abal sameyn waxa ugu badan ee wax lagu barto ama mataqaana wax lagu halaawo marka in dhanka technology-da in la ilaaliyo oo la yareeyo oo waalidka ilmihiisa u ilaaliyo diinta culimada inay mataqaana dhanka diinta markii wacyigelinta barnaamijyada la dhaho waa laga jiifaa masaajidada jumcaha barnaamijyo kale laga sheekeeyaa iyo waxyaabo kale to dhankan kale laga hadlabo sida kale to xeerar jiro ee sameeyaan mataqaana wasaaradaha iyo dawladda ayadana mataqaana waxa dhan waa qabyo maalin walba waxa la bilaabo waa la qoro waa laga tagaa in xeerarka ayagana mataqaana la bilaabo wacyigelinta faraha badan in la sameeyo aqoonta laftirkeeda ee waayadan la baranayana de waa farabateen iskuulada jaamacadaha waa farabateen in dawladda gacan bir ay ku qabato la kontaroolo ardayda laftirkeeda waxa la barayo la kontaroolo arday waxa arkaysa macallin dhahay macalinka saaxiib baan lahay gabar dhees macalinka baan saaxiib lahay iyo wiil dhahay mataqaana macallimada baan saaxiib lahay iyo mataqaana waxyaabo ardayda arkaysa dhaqan xumo lagu dhaqmayo yani meeshii waxa waay lagu baran lahaa cilmiga diin iyo maadi haday noqoto meesha ugu xumay hadda noqoto laga soo baxay marka in waxaas la kontaroolo waxaana kontarooli karto mataqaana in la helo balance ama sharci ah ee dejiyaan arrimaha bulshada iyo dadka iska kaashadaan si loo helo mataqaana dawlad adag oo dibadda u aasan yahay kontaroolto waxbarashada ayada ee asaasiga waa tahay aad baad u mahadsantihiin sheekh cabdullaahi maxamuud ibraahim sheekh mawliid شريف عبد الله مرولول محمد قوري يسدو كلام مروه زهر إبراهيم متانو يو قيب إن لها دوردن أن كوهد لنا وعيقلين تكو أدن سيد الله يرين لها أما لو تشين لها بتعدية كدن كعوين كوحسدو كلام مهد قار إن مدن إذن كودا وذيها شأن أنت برامج كو بالله إلى دمات كيسا إن قال السعودي وحسدو كلام مهد علنا وزارة ده وين كريمها كويس كحقوق الإنسان كدولة قوات كتشوف أنت كل بدون برامج كنا بده واحد إنت إذن كتجينا في أمان الله.